أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دالكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى maamulka dugsiga maamulka waxaa mas'uuliyadi ka saaran tahay kow la socodka qawaaniinta waxbarasho iyo kuwa ciqaabeed ee diinteena iyo kuwa dalka nidaamkiisa laga hoos shaqaynayo sida dhinacyada xuquuqda ardayga da'da iyo waqtiga la ogol yahay qaab edbinta ama ciqaabta la ogol yahay tan dambiga ah iyo waxa la midka ah oo lama rabo ardaygii aad u anfacis leh in aad dambi ka gasho ama aad xadgudub ku samayso ama aad aakhiradaada wax ugu dhinto in aad dulmi samayso labo ilaalinta in meeshu buuxiso shuruudaha qaanuuniga ah ee meel waxbarasho loo ogol yahay iyo tirada markiiba la ogol yahay saddex dejinta iyo ilaalinta nidaamka waxbarasho ee dugsiga maamulku iyaga laga rabaa oo mas'uuliyadooda inay dejiyaan ilaaliyaanna nidaamka waxbarasho ee dugsiga afar keenida iyo la xisaabtanka macalinka waa mas'uuliyadda maamulka in ay macalinka ku qaataan aqoontiisa iyo xirfadiisa la heshiiyaan kala saxiixdaan heshiis dhan walba uu cad yahay la iskulana xisaabtami doona hadhowto shan aqbalidda ardayda iyo ku qoristooda heerka ku habboon ardayga cusub ee la keenaya waa in la og yahay heerka uu marayo waad aragteen maalan wadankan aan joogno oo kale waxaa jira kow wax go-an oo aan marna la khilaafi karin oo ah ardaygu wuxuu la fasal noqonayaa ardayda da'diisa isagoo waxba aqoon xataa haddii loo keeno oo hadda baadiyo laga keenay ama wadan kale ka yimid waxaa la geynayaa kuwa la da'da hadday yar ayd iyo yar aydkaasa lala fariisinaya waa inuu jiraa marka qaanuun noocaas ah oo u degan imtixaan la marinayo ardayga lagu ogaanayo heerkiisa lagu ogaanayo waxa uu u baahan yahay markaa kadibna lagu habaynayo heer aqooneedkiisa marka aqbalidda ardayga iyo ku qoristooda heerka ku habboon waa mas'uuliyadda maamulka dabcan waa la kaashan karaan macallimiinta oo waa u dirsan karaan macallimiinta qaari in ay qiimaynta heerka sameeyaan lix la tacaamulka waalidka waalidku waa qayb weyn oo muhiim ah oo ka mid ah dugsiga sida barnaamijkeennan aad ku arki doontaan ama aad ku aragteenba waa qayb weyn oo ka mid ah dugsiga iyo hirgelintiisa toddobo ururinta dhaqaalaha iyo maamulidiisa dhaqaaluhu waa tiirnaxaadka dugsigu ma socon karo dhaqaale la'aan sidaa awgeed waa in la helo dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa dugsiga sidii loo heli lahaa iyo sidii loo ururin lahaa iyo maamulidiisu waa mas'uuliyadda maamulka sideed kala habaynta fasalada iyo waqtiyadooda sagaal isku xirka inta dowrka ku wada leh dugsiga sida maamulka masjidka haddii uu dugsigaasi masjid ku dhex yaallo waalidka waa waalidka ardayda dhalay ama mas-uulka ka ah ardaydii laftigoodii iyo macallimiinta intaas oo dhan isku xirkooda iyo in ay wada gaaraan qaab shaqayntii la rabay waa in ay og yihiin maamulka dugsigu in ay tahay mas-uuliyadooda ayna ka soo baxaan toban habaynta nidaamka dhiirigelinta iyo kan ciqaabka waa in uu jiraa nidaam degsan oo loogu talagalay qaabka ardayga loo dhiirigelinayo qaabka macalinka loo dhiirigelinayo qaabka waalidka fiican loo dhiirigelinayo iyo midka ciqaabaadka oo intaba iyaguna leh waa mas-uuliyadda maamulka 11 ilaalinta tayada waxbarasho iyo gaaridda heerarkooda waa mas-uuliyadda maamulka la xisaabtankii macalinka dabcan macallin walba fasalkiisa isaga ayaa laga rabaa in uu arrintan mas-uuliyadeeda qaado oo ilaaliyo tayada waxbarasho ee fasalkiisa iyo gaaridda heerka arday walba la rabo inuu gaaro laakiin la xisaabtanka arrintan iyo ilaalinta in fasal waliba ku socdo sidii lagu heshiiyey waa mas-uuliyadda maamulka
12 joogtaynta iyo maamulidda kulamo joogto ah oo maamul iyo macalinba looga tashanayo danta shaqada kuna saabsan isbaraarujin war kala qaadasho iyo wixii la mid ah howlaha maamulka oo aan la soo koobi karin waxaa ka mid ah hubinta isticmaalka ee waqtiga ee maamul iyo macalinba bilow ilaa dhammaan in lagu bixiyo keliya wixii shaqadu ahayd qofkii aan qaban ama isku mashquuliyo wax kale sida sheeko telefoon ama kombiyuutar aan wax dhanhi ugu jirin dugsiga ama ardayda uu waxbarayo wuxuu jabiyey heshiiskii waqtiga ee uu wax ku qaadanayay xalaalnimada waxaasna shaki ayaaba geli kara maadaama uusan sax u shaqayn waxaa kaloo ka mid a la socoshada suuqa iyo qiimaynta waalidka ay qiimaynayaan madarasada iyo inay ku fiican tahay oo ay xitaa iskoolada qaar kula tartami karto nidaamka iyo waxbarashada qiimaynta waalidka afti ahaan si koox koox ah ama kulan keli ah ama su'aalo qoran ayaa looga heli karaa yacni haddaad rabto waalidka inaad arrintooda ogaato iyaga oo koox ah ayaad kulansan kartaa waxaad samayn kartaa inaad u samayso kulan keli ah oo aad tiraahdo waxa wadamadan oo kale looga yaqaan parent meeting keli ah ama waxaad u diri kartaa questionnaire ama su'aalo qoran oo aad leedahay iga soo jawaaba akhrido oo aad isku maaragtay aadiso jawaabihii oo aad ka soo saarato halkaas qiimaynta dhabta ah ee loo batay waxa ay tahay dabcan markasta la waayi maayo qof iska xanaaqsan ama suu rabay waaya ama wax la mid ah aan ictibaar badan la siinaynin laakiin waxaa la rabaa majority-ga ama dadku meesha ay u badan yihiin mar walba faa'iida kuugu jirta macalinku waa inuu samayn karaa asaga laftigiisu qiimayn noocaas oo kale ah oo ardadiisa fasalka si uu ogaado in uu mas-uuliyadiisii gudanayo iyo in kale maamulku waa inay ku baraarugsan yihiin in waxyaalaha sumcadda dugsiga kor u qaadaa ay ka mid tahay qaab dhismeedka madarasada sida meesha maalmaha saacadaha maadooyinka laga dhigto iyo wixii la mid ahi tixgelinta codsiga waalidka ku baraarugsan tabarta iyo baahida ilmahooda ee dhanka xifdiga qur-aanka iyo maadooyinka kale ee ay gooni u codsadeen sida tafsiir caqiido tajwiid special courses waxa la yidhaahdo ama maadooyin khaas ah oo wadciga ama bii-ada looga baahan yahay oo baraarujin ah iyo wixii la mid ah inay dhigto maadooyinka tarbiyada islaamka iyo baraarujintaba cid aqoon u leh oo ku habbooni waxyaalahaas oo dhani waa waxyaalaha sumcadda kor u qaadaya waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha sumcadda dugsiga kor u qaadaya waalidka waqtiga haya in loo sameeyo casharo ama barnaamijyo ay ka faa'iidaystaan waalidka waqtiga haya in loo sameeyo casharo ama barnaamijyo ay ka faa'iidaysan karaan weliba marka ay caruurta keenaan iyo inta ay caruurta sugayaan waxaa kaloo ka mid ah waalidka in loo sameeyo waqtiyo sanadkiiba ay si xor ah u imaan karaan fasalada oo ay dhex fadhiisan karaan talooyinna ka soo jeedin karaan waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha sumcadda dugsiga kor u qaadaya dhallinyarada ka baxday dugsiga iyaga oo waxbartay iyo kuwa kale ee masjidka ama xaafadda ee iyana wax yaqaan oo fursad dhowr bilood oo tatawuc ahaaneed ah ama voluntary waxa la yidhaahdo ay ku tababartaan laga siiyo malcaamadda ama dugsiga wixii fursad macalinimo ama maamul soo baxdana iyaga tixgelinta koowaad laga siiyo taasi waxay ka qayb qaadanaysaa dhallinyaradaasi in ay kow loo diyaariyo mas-uuliyadooda mustaqbalka oo ah in ay iyagu bulshadoodan ruwaad u noqon karaan dad hadhowto qayb ka ah in ay iyagu ku tababartaan oo mustaqbalkooda in ay diintii ku dhex jiraan oo ay soo galaan xerada waxbaridda iyo kawarqabka iyo waxa la midka ah intii meel kale looga gacan haatin lahaa marka arrimahaas oo dhani waa xaggii sumcadda haddii aan dib ugu noqonno marka waxyaalaha maamulka laga rabo waxaa ka mid ah suurtagelinta inuu jiro xiriir joogto ah oo ka dhexeeya macalinka iyo waalidka macalinka iyo maamulka iyo waalidka markii loo baahdo sida kulan degdega telefoon ama warqad ama la socodka waalidka iyo maamulka ee horusocodka waxbarashada ardayga sida buugga ardayga ama software lagala socon karo progresska ardayga waxaan leeyahay horusocodka ardayga sida barnaamij la yidhaaho class dojo oo aad u fiican iyo wixii lamid ah waxaa kale oo ayana soo hoosgalaya mas-uuliyaadka maamulka ee aan la koobi karinin hubinta in qaab habaynta fasalku tahay mid sahlaysa in si fudud ardaygu wax u barto keliya nidaam in la dejiyey laguma kaaftoomi karo marka maamulku waa inay hubiyaan in qaab habayntii loo habeeyey fasaladu ay yihiin mid shaqaynaysa oo sahlaysa in si fudud ardaygu uu wax ugu barto dugsigu boos ahaan iyo bayad ahaan waa inuu yahay meel waxbarasho u qalanta waa inuu leeyahay qaab fasaleed u gooni ah fasal kasta waa inuu leeyahay qaabab kobciye akhlaaqda wanaagsan oo loogu sii talagalay waxaanoo dhan waxay soo hosgalayaan mas-uuliyaddii maamulka iyo qaabayntii waa inuu kaalmaynayaa noocyada kala duwan ee ardayda
ardayda iyo yoolgaarkooda dugsigu waa inuu leeyahay nidaam loola iisho wixii tabasho ah meel lala aado hadduu ardaygu wax sheeganayo hadduu macallinku wax sheeganayo oo si qaab la yaqaan raacaya oo ay cid waliba og tahay oo hadhowtana natiijadeeda uu qofku ku xisaabtami karo uu og yahay waa in ay jirtaa marka nidaam loola iisho wixii tabasho ahi waa inuu jiraa waa inuu leeyahay xanaano kaafisa baahiyaha ardayda xanaanadaasi wax kastay noqon kartaa si kastay noqon kartaa mararka qaarkood arday waxaa u baahan baa jirta inay biyo cabaan weliba wadamada qaar waa khasab dugsigu ama madarasadu waa inay leedahay iskuulku waa inuu leeyahay ardaygu meeluu biyo ka cabi karo meelaha qaar ardayda qaar ayaa si ay maalintoodii waxbarashadu u socoto u baahanaya keliya yararka oo qandhajabinta ah waa inay jirtaa waxyaalaha la yidhaahdo first aidka iyo waxa la midka ah dhaawac yar hadduu yimaado qalin uu qoranayay baa si khaldan u waxayn kara u dhiigayn kara waa inaad plasterskii iyo wixii la midka ha aad haysataa xanaanada ardaygu u baahan yahay ee degdega ahi waa in ay meeshi taalla waxaa soo hosgelaya haddii emergency dhaco iyo proceduradeedii iyo taas waaba khasab madaraso aan lahayn oo aan aysan ka jirin waa in lasii sameeyaa tusaalayaal sidii inay wax dhaceen oo kale laga soo qaado oo la cararo oo meelihii laga carari lahaa iyo meelihii lagu kulmi lahaa iyo leh waa in waxaasoo dhan laga faa'iidaystaa nidaamyada horumaray ayna leedahay madarasadu oo laga helaa madarasadu ama dugsigu waa inuu leeyahay musqulo ama suuliyo ku filan ardayda mar walba inta arday joogta musqulo ku filan waa in ay leeyihiin waa in nadaafadda dugsiga iyo musqulaha intaba ay yihiin kuwo dhab loo ilaaliyo oo aan hadhowto wax dhibihi ka imaanaynin lama soo koobi karo mas-uuliyadaha maamulka maxaa yeelay waa wadnaha dugsiga shakina ma leh in ajarkoodu uu alle agtii u dhigmayo juhdiga iyo mas-uuliyadda xadkooda tusaale ahaan macallin kasta wixii uu baray iyo arday kasta wixii uu ku dhex bartay dugsigaas ajarkooda ayay maamulkuna helayaan keligood maaha iyaga iyo ciddii dugsigaa suurtagelisayba ama ciddii dhistay ha noqoto ama ciddii ogolaatay ha noqoto iyo wixii lamid ah waase in alle dartiis loo sameeyo mar walba ikhlaasku waa inuu meesha ku jiraa laakiin shaqo ahaan keliya haddii loo samaynayo qof walba inama alacmaalu binniyaat weeye niyadiisa ayaa loo qabanayaa walikulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu leeyahay wixii uu niyooday أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دذلكي لا يمذي الله يروي قرقان